كي وزارة الرماح الدبادة سرتها وانا عيدك كترسل وها انت أصدر dadkaasi waa astaan qaran weeye loo baahan yahay cid walba oo Soomaaliyeed inay sheegto bunbuniso wanaagooda iyo waxay qabteen maxaa yeelay dad badan oo iyaga kala ah waa ku tacadiyeen laga yaabaa ma aysan xafidin wixii loo dhiibay laakiin iyagu waa xafideen waxayna noqotay taariikh ummadda Soomaaliyeed u harta dawladda Soomaaliyeed u harta intaas way heliya oo loo baahan yahay inaan xusuusanno oo xusid mudan dad ka difaacay oo u dhintay dhammaan Soomaaliya oo idinku koowaad ka tihiin qaar badan ay u dhaawacmeen yaa mudan in la xasuusto magacyadoodana aan sheegno meel kastana aan ku qorno magacyadooda haddaynan sheegin halyeeyadeenna dadkeena wanaagsan haddaynan sheegin waxaan idiin sheegayaa oo xaqiiqo ah inaan lahaanaynin taariikh waxaan ka sheekeynaa oo ka hadalnaa qof dhib sameeyey waa inaan bilaawno inaan sheegno oo ku tartanno dadka wanaagga ka shaqeeyey oo koow ay ka yihiin dadka badbaadiyey qaranimada Soomaaliyeed saddexdaas iyo kuwii u dhintay meesha ku jiro maysan what happened waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa waxaan arkayaa dadkii inay qoraxdu adkaysan waayeen maxaa yeelay ilaa saakiyeen oo quraacan waxaan halkaan rabaa inaan ka caddeeyo siyaasadda dawladda ee ka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ama inaan xoojino oo aan dhisno ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa koob ka ah oo aan doonaynaa ciidanka Soomaaliyeed inay noqdaan ama ciidanka booliiska ciidan ku dhisan cadaalad dhexdiisa ciidan aanan asxaan u samaynayn qof gaaran soo dhawaysanayn ama qabiilis inaan ku soo dhawaysanayn oo lagu soo dhaweynayo qofkaas waxtarkiisa Soomaalinimadiisa wadaniyadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa oo aan doonayno inaan tababarro badan furno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabayno oo aan u dhammaystirno agabka iyo wax alla waxay u baahan yihiin sidaad maanta ku aragteen bandhigii halkan ay boolisku soo dhigeen intaasna waa tusaale kooban weyn waxaa intaas dheer inaan xaqiijino xuquuqdooda inaan xaqiijino oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijino oo aan u dhammaystirno hadday tahay mushaaraad hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay daryeel kale insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo kii naga geeriyooda kii naga baxa caruurtiisa annaga ka mas'uula sida caruurteena halkan joogto kale oo maanta noo sameynayay wacdaraha iyo mahrajaanka noo sameynayay waxaan halkaas idinkugu darayaa Generaal Bashiir iyo Generaal Bashiir Goobe iyagu naftigooda caruurtaasi ahaan jireen halkaasay ka yimaadeen marka kii naga baxa caruurtiisa annaga ka mas'uula annaga koronayna waxbarashadooda iyo noloshooda annaga siinayna haddii ay noo koraanna waxaan siinaynaa muhiimadda ugu sarraysa hadday noqoto shaqooyinka dawladda maxaa yeelay wadaniyiin halgamayaal yaa dhalay waxaa intaas dheer oo intaasoo dhan aan u samaynaynaa inaan ciidanka moralkiisa kor u qaadno inaan ciidanka moralkiisa dhisno oo qof walba oo ciidana uusan cadowga ka baqin maxaa yeelay xaqudir ayaa tihiin waxaad u dhimanaysaan dalkiinna waxaad u dhimanaysaan dadkiinna waxaad u dhimanaysaan diintiinna iyo mustaqbalka carruurtiinna u dhimanaysaan marka qof kasta oo muwaadin ah inuusan ka baqin geerida waxaan